kulanti wanaagsan khiyaarta nagu xiran meel kasta oo dunida joogtaan waxyaabo la yaab la ayaa dhacaya marka aad fiiriso xiisadan taagan horta maanta waxay ahayd maalintii sagaalaad dagaalku waxa uu lahaa wajiyo kala duwan oo iska soo horjeeda marka laga yimaado luqadda rasaasta waxa lagu dagaalamaya luqadda warbaahinta iyo afkaarta Trump war ayuu soo saaray maanta isagoo la hadlaya telefishinka ABC News waxa uu yiri haddii dawladda Iran ay soo magacaabaan hogaamiye aynaan inagu raalli ka ahayn isla markaana aan aqbali karin afkaarta Mareykanka iyo xulufadiisa gobolkan ma sii jiri doono dunidana waan ka tirtiri doonaa sida daraadeed shuruudo ayuu meesha keenay oo leeyahay waa qasab dawladahaas inay qaataan waa Iran inay qaato warban arinta ka siinaya Recep Tayyip Erdogan waxa uu leeyahay marka la fiiriyo gantaalaha iyo diyaaradaha droniska ah ee Iran ay nagu soo tuurayso waxay nagu qasbayaan dagaalkeena galno sidoo kale Azerbaijan ayaa kelmadda oranaysa warban ka siinaya inta wada joogno sidoo kale inta barnaamijka idin faaqidaya waxaan eegi doonaa Saudi Arabia oo caawa mayd u yaalo ku geeriyooday gantaalaha Iran ay tuurayso mid kamid ah magaalooyinka Al-Kharaj la yiraahdo Sacuudiga ku taala ayuu gantaal ku absaday Mohammed bin Salman ma halayo mana aamusi karo marka la fiiriyo dhibaatooyinka wadankiisa gaaraya Kuwait waxbay iska celisay oo waxay leeyihiin dhowr gantaal ayaan dhulka soo dhignay diyaarado drone Israa waan burburinay Iraq waxa uu leeyahay xulufada reer galbeedku waxay nagu qasbayaan dagaalka inay nagaliyaan ma Iran bay la dagaalamayaan si iyaga dagaalamaya Abbas Araghchi oo hadlay wasiirka muraha dibadda Iran waxa uu leeyahay ma doonayno wax la yiraahdo xabad joojin oo Mareykanka waan iska celinaynaa dagaal ayaan diyaar u nahay inaan sii wadno warban iyana arinta ka sii doona inta wada joogno mustaqbalka dagaalkan inuu si degdeg ah u joogsado waa adag tahay qubarada istiraatiijiyaasha waxay tilmaamayaan in kaydadka sawaariiqdu ay maran doonaan laakiin hadda dhinacyada dagaalamaya ay u jihaysteen samaysashada diyaaradaha droniska madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waa hadlay waxna uu yiri dawladda Iran haddii ay rabaan in ay nabad ku ladaan oo ay nabadgeliyo ku joogaan waa in ay qaataan inaga damaceena iyo rabitaankeena sida uu yahay waxa uu sidoo kale yiri hogaamiyaha la dooranayo waan inaan talo ku yeelanaa inaga Trump hadalkan aad buu ugu soo celcelinayay isbuucan warbaahinta uu tago haddii ay Axios noqon lahayd haddii NBC ay noqon lahayd haddii ay Fox News noqon lahayd intaaba hore uga sheegay maanta isagoo waraysi siinaya telefishinka ABC liiraahdo ee ku yaala dalka Mareykanka waxa uu yiri annaga haddii aynaan go'aan ku yeelan go'aaminta hoggaanka cusub ee Ali Khamenei bedelaya dalka Iran waa isdaalinaya ninkaas caddi iyo mugdisi ma noolaan doono oo madaxa laga goyn doona waxa uu noqon doonaa nin isdhiiba oo Mareykanka fahma oo la shaqeysta ama waxa uu noqon doonaa mid luxudka aada sidii saaxiibkii Ali Khamenei oo kale dhinaca kale dawladda Iran arrintan ka jawaabtay si waliba hadal raganimo leh jawaabta ay bixiyeen Iran ninka Abbas Araghchi ahaa wasiirka muraha dibadda ahaa ayaa warbaahinta hor yimid wuxuu yiri horta Trump hadalkiisa waan maqalnay laban ka leenahay waa mare waxaan leenahay horta Trump oo wadankan Iran la yiraahdaa wax tala ah iyo aragti ah oo aad ku leedahay hoggaankeeda iyo mustaqbalkiisa iyo go'aamintiisa horta ma jirtee taa qabso taasaan ka leeyahay yiri oo hoggaamiyihii waxaad sheegaysaa oo aad tilmaamayso horta taasaan ka leenahay haddii aan reer Iran nahay waa la isku garnaqsanaya markale ayuu hadlay isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu yiri dhowr goor baan maqlaynay iyadoo la leeyahay war dagaalka joojiya miisaska diblomaasiyadda ha lagu laabto Iran ay dagaalkani dani kuuguma jiraan inagoo waliba xalay warshadaha sifaynta shidaalka ee dalka la duqeeyay horta waxaan leenahay yir Mareykanka iyo xulufada Israel inagoo xabad joojin mar rabnay taana qabsada oo dagaalka ayaan diyaar u nahay waan sii wadi doonaa Araghchi oo sii hadlaya markale waxa uu yiri doqon waxaad moodaa ereyadiisa iyo sida uu wax u leeyahay meerisadii gabayga Allah u naxariistay Faarax Nuure ahaa doqon baa halkii lagu qatali qoorta soo dhigan maana midiya lee qashaa lagu qali doono ninka waxa uu leeyahay warshalaadna qatasheen oo dagaalkii bishii June anagoo idin kula jirna wada hadal ayaad nabad inta diideen aad duqayseen
gobanimaan qaadano 12 maalin kadib inagoo raggeena sharafta lahaa raggii yaqaanay nuclearka iyo scientistiyaasha ay meesha ka baxaan iyo khubarada ciidanka ayaan haddana rag iyo xeeshii isqabasho iyo rag isdagaal fahmi jirnoo gogol galnay mar kalaad maanta inagoo gogol ku jirna gantaala nagu bilowda inaad duqayseen marka maanaa midiya leeqashaa leegu qali doono Iiraan mar kale lama qatali doono ee qabsada arintaana oo wax nabad la yiraahdo yaa la inoo keenin ayuu hadalkiisa sii raaciyay haddii aan sii fiiriyo duqeymaha iyo waxa dhacaya iyana waa ka sii xag jirtaa maanta xiisaduna waa ka ballaarnay magaalada la yiraahdo Qum governorka halkaasi ka taliya ee dawladda Iiraan waxa uu yiri maanta diyaaradaha dagaalka ee reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka iyo kayaanka Israa'iil nagama kor dhaqaaqin oo madaxa kor loo qaado waayay oo geedaha laga hoos bixi waayay marka waxa uu yiri duqeymaha dhacayay dhibaatooyin dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka dhashay sidoo kale magaalada Dahraan waxaa la duqeeyay goob dadka kaliyaha ka xanuunsan lagu daweeyo laakiin arrinta la yaab kale waxay tahay maxay Mareykanku u duqeynayaan goobaha rayidka ah gaar ahaan waxa loo yaqaan albunya taxtiya oo kala kaabayaasha dhaqaalaha wadooyinka meelaha shidaalka lagu sifeeyo maxaa loo duqeynayaa waa waxa Iiraan oo ay leedahay aniga qoorta dhiiban maayo oo nabad la soo barbariyo mar dambe la ii keenay maayo wax sheekada waxa ay macad baa cunashada mase waxa ka tagisle Iiraan doodaasay miiska soo saareen caawa dawladda Saudi Arabia ahayd 10 baa ku dhacay la yaab leh oo waliba muddo ay ka sheekeynayaan laakiin markii carabta ahaa dhibaatooyinka gaaraya sanadkan sida uga soo kabtaan ayaa waxa uu noqon doonaa mid aad u ballaaran tolo maxaa helay waan idin sheegi doonaa ee qadar nasasho ah waayahay dawladda Saudi Arabia maanta 2 qof la dilay dhowr qofna waa dhinteen kadib markii magaalada Al-Qaraj la yiraahdo gantaal dawladda Iiraan ay soo tuurtay halkaas uu ku habsaday Mohammed bin Salman ninka dhaxal sugaa ka Imaaraadka ahna ra'iisul wasaaraha waddankaasi golaha wasiirada haysta nin aad iyo aad u garasho sareeyo inuu yahay dagaalkana lagu ogaado sababtu waxay tahay ninkan markuu dagaalku socday luuqadda uu ku hadlayo waa mid nabadgelyo ahayd laakiin halka kii ina saayid ee Imaaraadka ah ee reer Al Nahyan uu oranaya 24 saac annaga kaybla yuuraan nahay dagaalan ku jirnaa laakiin gantaal baa ku dhacay jawaab way bixiyeen Imaaraadka lama hayo laakiin ninka dantiisa soo gartay wuxuu leeyahay war nabadda wax dhaama la waa nabada naas la noogale sheekadiisaas ay noqotay meedkiisana waa aasanaya dhawacyadiisana waa daawaysanaya haddana wuxuu leeyahay war gacantaadan goyn karin waa la dhukadaaye aniga nabad baan u baahanahay Mohammed bin Salman doodiisa saasa loo fasiri karaa Kuwait baalaxooftana waa ka dhamaatay awood buuran ay hayaanna lama arko saacadii la soo dhaafo waxay dhowr gantaalna oo sawaariiqo la soo tuuraan burburinay dhowr diyaaradood oo daroonisana waan ka hortagnay laakiin lama arko daroon ay soo rideen ee gantaal ay burburiyeen raadadkiisii waxna lama sheegay waa intaas un bay warbaahinta waayadii ugu dambeysay ka sheegayeen waayahay haddii aan sii socdo Lebanon nimanka Israa'iil ahaa meeshaas waa iska heleen maanta dhowr tuulo oo dhinacyo kala duwan ku yaaleen waddankaasi ayaa la duqeeyay dad fara badanna waa ku dhinteen markay xoogaa joogaan Israa'iil Xayfa wax ku dhacaan oo Beero Sabca wax loo geysto oo Tel Aviv la garaaco oo garoonkii Ben Gurion ay wax ku dhacaan nimankan iska mawaalayaan waxay yiraahdaan meel kasta oo aad dhulka ka eegto ciid ka waayimays waxaana soo tuuriyeynaya soo farisiin maaha oo diinta islaamka haysta ama shiica ha noqdaan ama muslim ha noqdaan sunni waxaana ag deganna soo Lebanon maaha waxaan ugu hareeraysan carab maaha ma kana ka arno marka haddii wax gaaraan baalkan ay ku carab burburaan ninkii aan awood lahayn oo isdiyaari waaya wuxuu ku dhacay isaga baa aqoonsan doona aan eego war uu soo saaray معهد كدراسات كلا يراهدو Center for Strategic and International Studies oo arrimaha dagaalkan si weyn u la faguray maalmihii la soo dhaafay macadkan waxa uu leeyahay haddii dagaalkan 9 maalin hadda socda xal laga gaari waayo
maanta wixii ka dambeeya waxaynu geli doonaa weji ka halis badan kii la soo dhaafay daraasadaha la sameeyey waxaa la akhriyay awoodda labada dhinac waxaa la fiirshay afkaarta hogaamiyaasha dagaalamaya waxaa la eegay dhiiranayaasha ciidamada ee dagaalamaya waxaa sidoo kale la taxliiliyey tiknoolajiyada iyo hubka ay adeegsanayaan waxaa dib loo milicsaday kaydadka hubka iyo sawaariikhda la hayo kadib waxaa lagu dhisay daraasad iyo briefing dadka loo sheegay oo la yaab leh waxaa lagu yidhi horta adduunka 9 maalin dagaalka boorsamiidda u ahaa waxaa la geli doonaa maalmo ka halis badan maalmihii la soo dhaafay gantaalaha iyo sawaariikhda meelaa la iska dhigan doonaa geed daroon la yidhaahdo oo lacag yarna lagu sameeyo dhul weynna lagu burburin karo meel fogna la gaarsiin karo horta la adeegsan doonaa sidaa daraaddeed carabta hadday u bilaabatay oo wixii hore wax ma ahayn farsamadeediina waa lagu dhaqaaqay ay leeyihiin marka iiraan inay yidhaahdaan dagaalka ma joojinayna ha la ogaado waa wax meesha ku jira taana arrintaasaa taagan sidoo kale Trump waxa uu leeyahay ciidamo lugta ah oo aan Iiraan u dirno oo nuclearka iyo waxyaabaha Iiraaniyamka ee hodmiyaan ay soo qaadi karaanna waa saalan tahay inkastoo maanta Isfahaan la duqeeyay oo halkaas xarun nuclear ay ku taala la sheegay dhibaato in la gaarsiiyo lama oga shucaac wali inuu ka yimi Iiraanna waxay leedahay nin sargaal ah wuxuu leeyahay